علمي بارستو waa laf dhabarka horumar bulsho iyo mid aqooneed waa geedi socod furan oo su'aalaha laga dhigo furayaasha fahanka halka xogta iyo tijaabooyinku ay noqdaan aaladda lagu ogaado xaqiiqada sugan laakiin si cilmi baaristu u noqoto mid miro dhal ah waxaa lama huraan ah in la fahmo noocyada kala duwan ee cilmi baarista mid kasta oo ka mid ah waxa uu leeyahay ujeedo qaab shaqo iyo goob uu si gaar ah ugu habboon yahay nooca koowaad علمي باريستا موقالك descriptive research نوعاً علمي باريستا وحوق سارا فافاهنت حالة جرت يضو أن لا سمينين اسبدل وجيددو وإن لا صويرو حقيقة سيسوغان أو تيرو إياتيالي تصالي وإمي سبقول كيبا أرديد صوماليات إعدكتا كلية تكنولوجيا بارهاني وحو أرورين يا حق تركوبة وحو نكو سمين يا فلانقين سيئو أموجيو حالة هذا تاجن علمي باريستا موقالكو وتيركا لغو سالين كارو قرشة دجينتا سياسادات وحبرشو يمد عافيمات نوع لباد علمي باريستا تجابة experimental research تاني نوع أوغو في فرعون علمي باريستا وحا لغو سميا تجابو ستوس لو معمولو سي لو بارو سببتا iyo saameynta waxa la adeegsadaa laba kooxood mid la sameeyay experimental group iyo mid aan la saameyn control group tusaale daraasad lagu sameeyay ardayda dugsiga sare si loo ogaado hadii isticmaalka barnaamijka waxbarashada kitaabka digitalka uu sare u qaado darajooyinka imtixaanka noocan cilmi baarista waxa si weyn loogu adeegsadaa cilmiga caafimaadka sayniska iyo horumarinta tiknoolajiyada nooca saddexaad cilmi baarista falanqaynta analytical research نوعاني وحو أديكسدا حق هوري si loo helo macluumaad qoto dheer oo la xiriira isbedelka iyo sababta ka dambaysa dhacdooyinka halkan cilmi baaruhu wuxuu u baahan yahay xirfad sare iyo awood falanqeyn tusaale baaritaan lagu sameeyay xog 10 sano ee la soo dhaafay si loo fahmo sida sicir bararku u saameeyo awoodda wax iibsiga muwaadiniinta Soomaaliyeed cilmi baarista falanqeynta waxay gacan ka geysataa dejinta siyaasadaha dhaqaale qorsheynta mustaqbalka iyo saadaalinta suuqyada nooca afraad cilmi baarista kiiska case study noocaani waa mid si gaar ah diiradda u saaro hal unug sida qof koox hay'ad ama dhacdo waxaa lagu baaraa xaaladaasi si qoto dheer iyadoo la adeegsanayo ilo badan oo xog ah sida wareysiyo daawasho muuqaalo iyo akhrin dukumeentiyo tusaale daraasad qoto dheer oo lagu sameeyay iskuul ku yaala magaalada Hargeysa si loo fahmo saameynta waxbarashada la talinta mentorship ee guusha ardayda cilmi baarista kiiska waxay bixisaa aragtiyo cusub oo xeel dheer loogana faa'iideysan karo horumarinta barnaamijyo iyo xalinta dhibaatooyin gaar ah ugu dambeyn ujeedada cilmi baaristu ma ahan kaliya in xog la helo ee waa in la fahmo xaqiiqooyin la helo xalal lana horumariyo nolosha aadanaha fahamka nooca cilmi baarista waxa uu ku ogolaanayaa inaad su'aal sax ah weydiisid wuxuu ku tilmaamayaa habka saxda ah ee baaritaankaaga wuxuuna ku damaanad qaadayaa natiijo la isku haleyn karo haddaba haddii aad damacsan tahay inaad noqoto cilmi baarar sare oo saameyn leh waxaa lama huraan ah inaad baratid oo aad si dhab ah u fahanto noocyada cilmi baarista cilmigu waa iftiin cilmi baaristuna waa dariiqa lagu gaaro iftiinkaas lagu soo biir markaleete si aan u sii wadno عشرات يلا يفهم علميات وقت دير